kulanti wanaagsan daawadayaal war kale oo degdega kacdoon ka dhana kooxdii ganacsatada ahayd ee maafiyada ahayd ee boobaysay dhulka danta guud ee dawladda Soomaaliya iska leedahay ee ku yaala xaafadda Siinay ee degmada Warta Nabadda oo xaafadaasi ka bilowday iyo dadkii ugu badnaa oo maanta isu soo baxay waxa laga cabsi qabaa in halkaasi uu ka dilaaco kacdoonkii ugu weynaa oo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halis gelin kara ila daawo muuqaalka dadkii shacabka ahaa ee laga barakiciyay xaafadda Siinay ee degmada Warta Nabadda sida aad arkaysaan muuqaaladan waa jiingad lagu wareejiyay dhulka koox ganacsato ah ayaa jiingad ku wareejisay sidoo kale maalmaha soo aadan doonaysay inay kala tuurato sidoo kale halkan waxa ku jirta siyaasad ah in mucaaradku aysan halkan isugu imaan dadkuna aysan isugu soo banaan bixin dawladuna waa ka sii baaran degtay oo jiingad ayaa halkan lagu wareejiyay sida aad arkaysaan laakiin maxaa helay dadkii shacabka ah waa isu soo baxeen jiingadii ayay fujiyeen mid ay qaateen mid ay burburiyeen iyo mid ay dhulka soo dhigeen ayay ka dhigaan waxayna u muuqdaan dadku inay baraarugeen mucaaradkuna ay xilligan haystaan fursad weyn oo la iskaga horkeeni karo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan meelaha danta guud waa dhulka danta guud ee dawladda Soomaaliya ay leedahay laakiin dadku ay muddo deganayeen maxay kula tahay dadku inay sidan sameeyaan ganacsatada in sidan lagu sameeyo kala tuuran rabtay ee tuugada ah dhulka dawladda sidee u aragtaa annagu ma lihin dawladda ayaa dhibaatadan ka dambaysan laakiin waxa sida yeelaya dadkana barakicinaya waa ganacsato maafiya ah shacabkuna waa ay ku saxan yihiin inay iska dulqaadaan aragti ahaanteeda adiguna aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaad inoogu reebi kartaa muuqaalkaas si share garay marna dhexdhexaad ha ka noqon dadkaaga in la barakiciyo oo la dhibaateeyo qaybta hoose ee commentiga fikirkaaga xur ayaad u tahay inoogu reeb aan ku bilownay sida aad muuqaaladan ka aragtaan waxay ka imaanayaan xaafadda Siinay ee degmada Warta Nabadda maanta waxa ka dhacday arrin taariikh dadkii waa isu soo baxeen iyagoo macaawisyadooda wata waxayna bilaabeen inay jiijidaan sidoo kale inay dhulka la jaraan dhammaan jiingadihii halkan lagu wareejiyay iyo sidoo kale alwaaxyadii halkan la isku saaray dhowr siyaasadood ayaa halkan ku jirta waa laba qodob ayaa halkan ku jirta qodobka koobaad waa in koox ganacsato ah ay jiingada halkan ku wareejiyeen sidoo kale maalmaha soo aadan ay doonayeen inay kala cabirtaan oo kala tuurtaan kadibna ay guryo dabaqyo ah ay ka dhistaan waa halkii laga barakicay dadka masaakiinta ay rabaan inay dabaqyo ka dhistaan waa qodobka koobaad ganacsatadii maafiyada ahayd waa lagu fahmayo dadkii way burburiyeen jiingadii haddii laga dhiso guri miraayada ahna maxaad ka sugaysaa maba dhisi karaan oo shaqaalaha xitaa ma imaan karaan halkan dadku heegan ay ku jiraan waxayna u diyaarsan yihiin dhaqdhaqaaq kasta oo halkaani ka socda inay la dagaalamaan dhagxaan ayayna ku dagaalamayaan kacdoon la mid ah kii Naybaal ka dhacay ayaa laga cabsi qabaa inuu halkan ka bilowdo haddaba dadkii waa baraarugeen waxayna u muuqdaan markan inay ka hor yimaadeen ganacsatadu inay barakiciso afar jeeblayaasha ah ee lacagta ugu badan gacanta ku haysta laakiin aan u jeedin ee u jeeda kaliya indhahana ku haya dhulka ay degan yihiin masaakiinta sida ay uga dulqaadi lahaayeen qodobka labaad ayaa ah maadaama mucaaradku ay dhawaan qorsheynayaan in banaanbax uu dhaco banaanbaxaasi goobaha loo asteeyay waxa kamid ah goobtan waan xaafadda Siinay ee degmada Warta Nabadda goobtan maadaama ay tahay goobaha loo asteeyay mudaharaadka sidoo kale ay leedahay dhul aad u weyn oo barxad ah mucaaradkuna ay doonayaan inay isugu yimaadeen dadkan ay isugu soo saaraan dawladii iyo ganacsatadii intay shireen ay yiraahdeen waa inaan jiingad ku wareejinaa halkan oo aan sameynaa fikrad ka duwan mid ay mucaaradku la yimideen taasina mucaaradka waxay ku kalifi doontaa inay halkan imaan waayaan maadaama meeluhu kale iska noqon doonaan luqluuq oo barxadii aadka u weyneed ee amnigooda ay ku sugan lahaayeen gibi ahaanba lagu wareejiyay maad aragtay jiingad iyo waxyaabo la mid ah iyo alwaxyo laakiin mucaaradkii waxay soo abaabuleen dadkan oo ka amar qaata waxayna bilaabeen dadkii inay jiijidaan sidoo kale in dhulka la jaraan dhammaan jiingadihii iyo alwaxyadii halkan saarnaa waxaana bilowday abaabul xoogan oo mucaaradku ay bilaabeen arrintan marka waxay u muuqataa dad badan inay dhiiradaan oo ay soo baxaan guriyaha ka soo baxaan ay iska difaacaan ganacsatada sida lamida ganacsatada niyad-jab aad u weyn ay ku tahay sababtuna wax kale maaha meel aad jiingad ka dhisi weysay guri dabaqa kama dhisi kartid sida awgeed dadku waa soo baraarugeen waxayna u muuqdaan iyagoo xitaa macaawisyaashooda wata oo burar wata ayay isugu yimaadeen halkan waa jiijideen
wax walba oo ay sameyn lahaayeen halkan ayay ka sameeyeen aragtidaada waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga inagu raab maxay kula tahay maxaase kaaga baxay muuqaaladan markii aad daawatay oo maanta laga helay xaafadda Siinaaye ee degmada Warta Nabadda kaliya maaha xaafadda Tarabuunka iyo Oodweyne dhammaan meelihii la dumiyay oo la burburiyay Oodweyne lama burburin laakiin waa loo socday ee xaafadda Tarabuunka ayaa meel la burburiyay oo ku taalo waa xero horseed halkaas dawladdu waxay ku wareejisay dingad dadka xaafadda Tarabuunka ma soo kici doonaan oo sidii Siinaaye ma ku daysan doonaan oo ma jiijidi doonaan lama ugu waa la sugayaa oo iyaguna inay ku daysadaan ayaa la rajeynaya maadaama mucaaradku meelaha ay ku qaban lahaayeen banaanbaxyada ay qayb ka yihiin labadan goobood ee waliba kuwa ugu muhiimsan ay ka mid yihiin mucaaradku meel ay istaagaan ay way doonaan jiingadaha in la dumiyo marka waa lagu qasban yahay cagafta hadii la geliyo guri dabaqa iyo guri muwaadin deganaa iyo guri kale sar aha iyo guri caynka aha maanta waxay maraysaa in dadkii ay cagaf iyagu isu noqdaanoo ay jiingada iska dulqaadaan dawladdiina waxay noqotay dawlad manaxayaal ee hogaamiya sababtu wax kale ma aha sida u leena maxaa kalifaya in dadka dhulkooda laga barakiciyo oo ganacsato la siiyo dawladdu xaq ay u leedahay dhulkeeda qaadato laakiin waa hadii ay ka dhisayso isbitaal dan guud hadii ay ka dhisayso iskuul dan guud hadii ay ka dhisayso waxyaabo kale laakiin dhulka waa dadkan ka barakicinaya kadibna waxa rabaan ka samaysanaya oo lacagta jeebkan gashanaya wax soconaya maaha dhulkan halkaas ay ku aalayaa madaxweynaha ku xiga madaxweyne Xasan Sheekh ayaana soo celi doona sida ay mucaaradku ballan qaadeen ganacsatadan maafiyada ah marka xoolahoodu maadaama markii horeba ay xaaraan ay sii gelinayaan oo ma kala yaqaanin waa iska gashanayaan dhulkan hadhow lacaga dhiibaysin laaluusha bixinaysin ay isleeyihiin mucaaradka laftirkoodu lama ogeyn run ka tahay inay dhulkaas soo celi doonaan oo dadka ay u helin doonaan iyo inay campaign iyo olole ku galayaan laakiin sida ay ballan qaadeen dhowr jeer hore inay sheegeen kooxda uu Sheekh Shariif hogaamiyo waxay sheegeen in dhulkan aan la isaga haran doonin waliba xitaa dadka dhacay aan loogu sii doonin inaan guryaha in laga dumiyo kaliya laakiin cagafta waxay sheegeen maanta ku jirta dhulka dawladda ee dadka barakicinaysa inay ka dambeyn doonto cagaf kale aragtidaada waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga sidee u aragtaa dadkani inay sida isugu soo baxaan oo iska celiyaan kooxda ganacsatada ah sidoo kale ay la dagaalamaan ma loo baahan yahay xilligan in dhalinyarada iyo sidoo kale dadku ay kacdoon sameeyaan si la isaga celiyo kooxda ganacsatada anigu marnaba ma qabo mana taageerayo in dawladda lagu kaco laakiin waxaan qabaa in ganacsatada lagu kaco oo la burburiyo wax kasta iyo talaabo kasta oo ay qaadaan laga hortago la dhibaateeyo la jir dilo cagafta la gubo haday meesha timaado iyo waxyaabaha la midka laakiin dawladdu waa dawladda kaliya dalka maamusha dawlad xunina waxay ka wanaagsan tahay dawlad la'aan sida awgeed dawladda in la wada ilaashado laakiin ganacsatada la iska celiyo marnaba madaxweyne Xasan Sheekh u maleeymaayo inuu kooxdan soo amray inay dadka sida u dhibaateeyaan laakiin koox ka hooseysa ayaa laaluush iyo waxyaabo dhiibtay andana dadkii in la barakiciyo ayay sheekadu gaartay aragtidaada qaybta hoose commentiga inuu raab muuqaalkan si share garay hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir aragtidaadana ka dhiibo dadkan talaabada ay qaadeen tii lamida ama tu lamida naybaal hordhac mu tahay aragtidaada in la wadaag